coronavirus oo malaayiin qof oo caalamka handadaya xanuunkan oo markii hore ku dhici jiray xayawaanka ayaa haatan la xaqiijiyay inuu bini'aadamka u soo tallaabay wadamada Shiinaha, Japan, Thailand iyo Koonfurta Kuuriya ayaa laga helay kiisas. Shiinaha waxaa la xaqiijiyay 450 qof inuu haleelay. Magaalada haatan la karantiinay ee Koonfurta Shiinaha ku taal Wuhan ayaa kiisaska inta ugu badan laga helay. ilaa haatan 9 qof ayaa u geeriyootay sida la xaqiijiyay. Xanuunka waxaa lagu kala qaadaa neefsiga hawada iyadoo dadka loogu yeerayo inay xirtaan marka ay u baxayaan magaalada ama marka ay meel dad badan joogaan tagayaan maaskiga nooca surgical mask loo yaqaano. sidoo kale in la cabo biyo diiran warm water 50 ilaa 80 cc dadka waaweyn caruurtana iyana ilaa 30 ilaa 50 inay cabaan ayaa lagu talinayaa. waxaa laga digayaa inay dhuunta qalasho oo markasta waa inay qoyan tahay dhuuntu. cunooyin badan in laga dheeraado ayaa iyadana lagu talinayaa. xanuunkan malaayiin dad ah ayuu khatar ku yahay.